dambeeyay mashaariicda uu hirgelinayo mashruucii saldhigga berbera oo dad badan ka qaybiyeen madaxweynuhu isagoo oo dastuurku awood u siiyey inuu heshiis soo galo kadibna uu ka ansixiyo golayaasha wuxuu door biday isagoo tala wanaagga iyo tixgelinta dadkiisa eegaya heshiisii oo aan weli saxiixin oo qibyaha qodobadii uu kula soo heshiin lahaa dowladda aynu heshiiska wadagelayno qodobadii oonu weli isagu saxiixin ayaa wuxuu soo hordhigay labada gole wuxuu yidhi ka taliya ra'yigaasaa layla yimid nimankaas waxay halkaa aanu ka kalaysano waxaan ugu jooga qodobadaasaan doonayaa inaan la galee labadii gole qarankiiyo sharci dejinta oo igala taliya wixii xuma ka saara wixii saxanaynu raaca hore looma arag madaxweynaha awooddiisa u gudbiya saasoo kale labadii gole waxay ku ansixiyeen iyadoo mashruucaasi wuxuu noqday mid isku raacay oo intii qaranka matalaysay intuu madaxa saddexdii gole kii dowladda kii wakiilada iyo kii gurtuga isku raaceen oo intii hormoodka dalahay caalamka sida looga dhaqmo dimuqraadiyaddu waxa weeye ama xisbi gudihii ama dowlad xataa hadday qoys tahay marka hore fikradda timaado waa laga tashadaa fikradda waa lagu kala duwanaadaa waa laga doodaa tanaa inoo roon iyo tanaa inoo roon baa la yidhaahdaa marka la codeeyo talada oo qaatanka ka daba hadlaa waa fidmo wale aan doonayn in hore loo socdo waxaanu la socdaa labada gole labada guddoomiyaa fadhiyey waa labadii shir guddoon waa saddex nin madaxda ahaa ee dalka borotokoolkooda qoray dastuurku madaxweyne ku-xigeenku u maqnaa oo labada meel mootay inta badan iyo guddoomiyaha guurtida iyo guddoomiyaha baarlamaanka waa saddexdii borotokoolka qaranka ugu sarreeyay oo guddoominaya labadii gole oo loogu yeedho dastuurku wakhtiyo cayiman oo qura u tilmaamayna shirkay fadhiyeen oo 127 waa shirkii ugu weynaa qaranka tan sano gaaraya waxa nasiib darro aan hore weli loo arag guddoomiye baarlamaan oo baarlamaankiisu uu guddoominayo markay codkiisu raacaan matoortooda ka baxa caalamka waa kow dimuqraadiyadda waa kumeelqaabay ka ahay labada gole iyo qaranka talada qaadiyana gef bay ku ahay manaha siyaasad hufan oo ilbaxa oo tii dimuqraadiyadda ma aha ma waxa aynu leenahay ma waxa ay garanayn guddoomiyaha baarlamaanka iyo afarta ka baxay raacay iyo inta ka daba qeynaysa xisbigiisii ma waxay garan lahayiin dastuurku inuu qorayo halka majority ummadka baa la raacaya hal codeeri ayaa loo kala baxaa laisku raacaa madaxweynaha qaranka baariyaalkahay codkii waa laga ahriyo madaxweynimada ugu dhigay sharaf iyo ammaanbu ku madooba kaa dalkiisa bishaacaya axmed madaxweyne siinaayo 80 baa laga ku dhaqan maantana marka codayo ku dhaqaaqaya sideedana u dhici kartaa ninka bartoolka saxaadalka inuu dastuurka hor yimaado uu fagaaro intaas fadhimay ee fagaaruhu hogaaminayana inuu ka dhaqaaqo sideeduu xisbigaa dhan ugu bareerayaa dastuurka inuu ku gufo ulaa dastuurka anugu yeeli maayo haddii taydii la yeeli waayey waxba kama jiraan oo halkaa doonaan ka qaybinaya taasi maaha qaranku sidii ku heshiiyey